وهجاج madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland aysan iloobi doonin aqoonsiga Israa'iil ay siisay waliba martigelinta booqashadii ugu horeysay ee dibadda uu ku tago dal kale isagoo madaxweynaha sida uu hadalka u dhigay isagoo ka hadlaya xarunta madaxtooyada Israa'iil ay ku leedahay magaalada ay Islaamka ay xoog uga haysato ee Qudus ama Jerusalem kana barbar hadlayay madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland muddo 35 sano ay raadinaysay aqoonsi caalami ah balse Israa'iil ay noqotay dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u aqoonsada madaxweyne Ciro waxa uu sheegay in talaabadan ay tahay dhacdo taariikhi ah oo bog cusub u furaysa xiriirka Soomaaliland iyo Israa'iil isla mar ahaantaana labada dhinac ay iska kaashan doonaan arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo waliba amniga dhankiisa madaxweynaha Israa'iil Herzog ayaa waxa uu sheegay in xiriirka labada dhinac uu ka gudbayo heerka hadallada uu u gudbayo iskaashi dhab ah isagoo xusay in labada dhinacba ay wadaagaan caqabado la xiriira amniga iyo waliba danaha ilaalinta xasiloonida gobolka iyo waliba marinbiyoodka muhiimka ah sida uu yiri haddaba aqoonsiga Israa'iil ay siisay ee Soomaaliland iyo waliba talaabadan ay ku dhawaaqday Soomaaliland ee la xiriira in ay magaalada barakeysan ee Qudus Israa'iil ay xoog ku haysato ay ka furto safaarad ayaa waxa ka dhalanaya falcelin kala duwan oo dhinaca caalamka haddaba aragtida qaar ka mid ah ay qabaan dadka gobolka ayaa waxa ay sheegayaan in dalalka muslimka sida Turkiga Sacuudiga iyo waliba Masar aysan si fudud aysan u aqbali doonin baraarinta saameynta Israa'iil ee geeska Afrika sida ay qabaan dalalkaasi waxay xoojin karaan taageerada ay u hayaan dowladda federaalka Soomaaliya si ay uga hortagaan isbeddel kasta oo ku yimaada isu dheelitirka awoodaha gobolka sidoo kale waxaa jira cabsi laga qabo in haddii loolanka quwadaha gobolka uu sii xoogaysto Soomaaliland ay isu bedeli karto goob ay ku tartamaan danaha quwadaha shisheeye falanqeeyayaashu waxay qabaan in xaaladda noocaasi ah ay horseedi karto kororka dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka soo horjeeda joogitaanka ama saameynta Israa'iil dhinaca kale Israa'iil ayaa loo arkaa inay danaynayso xoojinta joogitaankeeda gobolka badda cas si ay u ilaaliso danaha amni iyo waliba kuwa ganacsi ee la xiriira marinbiyoodka baabalmandab maadaama dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee horey ay u afduubeen maraakiib ay leedahay Israa'iil isla mar ahaantaana ay bartilmaameysteen maraakiibta ganacsi ee Israa'iil ee gooshaya dhinaca badda cas kadib markii ay Israa'iil ay ku eedeeyeen inay xasuuq ay ka wado dhulka Falastiin arrintaasna ay ka jawaabayaan midowga Afrika Soomaaliya iyo dalal kale oo gobolka ayaa hore waxay u muujiyeen walaac ku saabsan tallaabo kasta oo saameyn karta midnimada Soomaaliya ama xasiloonida geeska Afrika gabagabadii aqoonsiga Israa'iil ee Soomaaliland ayaa waxa laga yaabaa inuu noqdo mid ka mid ah dhacdooyinka ugu saameynta badan ee gobolka ee sanadkan iyadoo la sugayo sida ugu falceliyaan dalalka gobolka iyo waliba ururada caalamiga ah waxaase muuqata in geeska Afrika uu galay marxalad cusub oo si weyn ay ugu loolamayaan quwadaha danaya